Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada meel walba oo dunida ka joogtaan. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. War hadda soo baxay ayaa sheegaya sidaad ogeydeen fanaan qadarkii oo Axmed oo xirnay in hadda la soo daayay. Warkaasi haddii aan idin soo faahfaahiyo waxaa ka mid ah sideesmadii fanaanka qadarkii oo 3 toddobaad ku xirnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Sideenta qadarkii ayaa waxaa gacan ka geystay xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo ah xildhibaan ku matala golaha shacabka safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya. Xildhibaan Carabow ayaa arrintan darteeda uga baxay Muqdisho si uu u soo daayo fanaanka xiran qadarkii. xildhibaan Carabow ayaa arrintan darteeda uga baxay Muqdisho muddada uu ku sugnaa dalka Itoobiya si uu u xaqiijiyo sideenta qadar. laanta socdaalka ee jinsiyadaha dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya dabayaaqadii bishii December qadarkii ka xirtay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama bixin sababta qadarkii loo xiray, balse hadda waxaa la rumaysan yahay inay la xiriirto arrimo dhanka sharciga socdaalka ah. naga filo wixii faahfaahin ah insha Allah goordhow waxaana si toos ah ugala socon doontaa wixii faahfaahin ah ka soo baxo arrinkaasi Kinky B officially. hadda wiilkeeni qadar waa la soo daayay wuu nabad qabaa mar dhow ayuuna soo gaari doonaa magaalada Muqdisho. alxamdulillah ilaahay ayaa mahad leh. warkani waxaa idin soo tabinayay anigoo baaga cadde ah. channelka aad kala socotaanna waa Kinky B officially. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar, share garay, like saar, comment asxaabtana la wadaag. ka walwalsaneed si ay u aragto in wiilkeeni dib u helay xuriyadiisa.